السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhamaantiin waan la salaamaa saaxiibta halkan ku xidhan meel kasta aad joogtaan. salaanka bacdi muuqaalkeennan sayska ugu horreys oo u hooseeya kadibna ku guulaystay guulo waaweyn iyo himiladii ku hamiyey. waa qiso cajiiba, waxba iga hordhici maayo, ku soo dhowaada. masar gaar ahaan caasimadda qaahiro waxaa jiray wiil yar oo ku hamiyi jiray inuu noqdo shakhsiyad muhiim ah, wuxuuna si gaar ah ugu taami jiray inuu noqdo maamulaha guud ee mid ka mid ah hoteelada caalamka ugu waaweyn. waxaa caado u ahayd inuu hamigiisa shaaca ka caddeeyo, laakiin nasiib darro dadku arrintaa kuma ay waafiqi jirin. iska daa in ay ku waafiqaan hadallo niyad jabina ayay ku odhan jireen. wiilkii yaraa wuu weynaaday, iskuulkii sarena u dhammaystay, kadibna wuxuu galay maamulka hoteelada si himiladiisii yoolkiisii u rumeeyo. waana qalin jebiyey. 2 sano ka bacdi markuu qalin jebiyey uu guursaday. intaa kadibna wuxuu haajiray waddanka Kanada isagoo rajo aad u badan qaba. waxayse meesha ku qabsatay dhibaatooyin ba'an maadaama uu dhulku yahay qurbe, luuqadii waddanka ma garanayo, shahaadadu wataana maaha mid la aqoonsan yahay. sidaa awgeed siduu shaqo u heli lahaa aad bay ugu adkaatay, ilaa uu gaadhay heer ay naftiisu ugu sheekayso inuu shaqo kale iska raadsado kana tala baxo himiladiisii ahayd inuu hoteelada caalamka ka shaqeeyo. werwer iyo walbahaar badan baa helay. haddii uu waddankiisii Masar ku noqdana dadkii way ku jeesaya, hadduu Kanada joogana inuu guul ka keenaa way adkaanaysaa. isagoo xaaladda ku sugan habeenada ka mid a ayuu ku riyooday aabbihiisii dhintay oo ku leh, aabba xasuusnow aayadda qur-aanka ah ee ilaahay ma bedelo qoom ilaa ay iyagu isbedelaan, taasoo tilmaame u ah inuu isbedel la imaado. riyadaas niyadda ayay u dhistay, wuxuuna helay dhiiranaan iyo qalbi adeeg, wuxuuna gaashaanka u dhigtay duruuf kasta oo adag. go'aan wuxuu ku gaadhay xaqiijinta himiladiisa, wuxuuna gunta ka fuulay salaanka guusha oo wuxuu ka bilaabay inuu noqdo maydhaha suxuunta hoteelada, wuxuuna bilaabay inuu mar walba ku celceliyo, waan karaa xaqiijinta himiladayda. wuxuuna bedelay qaabkii hore ee uu fikiri jiray. fikirkiisii ahaa inuu waddanka ku cusub yahay Kanada aanu cidna ka garanayn wuxuu ku bedelay, asalkayga, midabkayga iyo sinjigayga midna igama hor joogsan karo inaan guul gaadho maadaama aan ilaahay nafteedana kalsooni aan ku qabo. laga bilaabo wakhtigaas noloshiisii way isbedeshay, walbahaarkii wuu ka ba'ay, waxaana meeshiisii galay farxad iyo raynrayn, mustaqbal rajo fiican oo iftiin leh. caafimaadkiisu wuu fiicnaaday, kartidiisii way korodhay. sanadkii 1980 waxaa ku dhacay shaqaala'aan baahsan, haba yaraatee wax kayd ah oo meel uu dhigayna. iyadoo ay sidaa tahayna ayaa haweenaydiisii foolatay, dhakhtarkana loo qaaday, waxaana lagu soo qalay 2 mataanaha, waxayna dhakhtarka ku jirtay 2 usbuuc. muddadaas oo daryeelka carruurta aanay cidna ku wehelin. kadib wuxuu helay shaqo yar oo ah inuu noqdo caawiyaha hoteelada qotal duruuriga heerkiisa. shaqadaas oo sida uu kolba heer uga dalaacayay, ugu dambeyntii waxa uu noqday maamulaha hoteelka. waana markii taariikhdu ahayd 1968 ka shaqo galay. hoteelkii wuxuu gaadhsiiyey horumar weyn kadib markii uu maamul wanaag iyo tababar joogto ah sameeyey shaqaalaha hoteelka. isla wakhtigaas wuxuu si isdaba jooga u waday aqoon korodsi, isagoo aqoon daris ku dhigtay koorso. ugu dambeyntii wuxuu ku guulaystay abaalmarinta ardayga ugu fiican
dadka guryaha wax ku barta wuxuu dareemay inuu riyadiisii xaqiijiyey. Isagoo xaaladda wanaagsan ku sugan ayaa waxaa dhacay arrin lama filaan ah. mulkiilayaashii hoteelka ayaa go'aan ku gaadhay inay hoteelka xidhaan sidaana shaqadiisii uu ku waayo. waxaa taasu sii dheereed inay xitaa gaadhigii shaqada kala wareegaan. gurigiisii ayuu ku soo laabtay isagoo tagsi kiraa ah wata. mar labaad ayay xaalad adag iyo murugo iyo ciil lahi soo food saartay. xitaa saaxiibadiisii raggii ugu dhowaa way ka tala baxeen. isagoo xaaladda ku sugan ayuu soo xasuustay waanadii aabbihii had iyo jeerna uu ku celcelin jiray, haddii albaab xidhmo ilaahay albaab kale ayuu furaa. markaas ayuu bilaabay inuu isweydiiyo wixii uu qaban lahaa iyo sida uu u waajihi lahaa duruuftan adag ee wuxuu dib ugu noqday keydka naftiisa. wuxuu xasuustay inuu had iyo jeer diiwaan gelin jiray fikrad kasta oo fiican oo ku soo dhacda. haddii fikradaas laysku ururiyay in ay noqon karaan buug ay dad badani ka faa'iidaystaan, wuxuuna ku dhaqaaqay qorista kitaab. wuxuu u bandhigay madbacadaha, laakiin nasiib darro way diideen in ay u daabacaan oo ay u maalgeliyaan. wuxuu markaa go'aansaday inuu isagoo maalgeliyo wixii yaraa ee uu keyd haystay ku daawaco. wuuna yeelay. kitaabkii uu soo saaray nasiib wanaag muddo 3 bilood ayuu ku iibiyey in ka badan 5 koobi. waxa kale oo uu bilaabay muxaadarooyin iyo waxdhigis iyo inuu kitaab kale oo badan qoro. taasi waxa ay u sababtay inuu noloshiisa oo dhan isbeddel gaadhsiiyo, horumar aan weligii arag. kutubta uu qoray waa kutub lagu jecel yahay caalamka. waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysid, tolo wiilkan yare laga sheekaynayo waa kuma? jawaabtu ninkan laga sheekaynaya waa tirtoor Ibraahim Alfiqi. maanta ilaahay u naxariiste uu naga hooseeya, balse caqabadahaasoo dhan ayuu soo maray. markaa qisadan casharo badan bay mudan tahay. hadduu maanta isdhiibi lahaa oo markaa aanu qori lahayn fikradaha wacane uu dubaan gelinayay oo buugga wacan uu soo saari lahayn. buugga uu soo saarayna waxay 10 kufra guusha. markaa qisadeenna halkaasay nagu joogaysaa. inta qisa lamid aan isugu iman doono. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu.